waxaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ay Soomaalidu ku wada xiriirto aad loo hadalhayay ciidamada booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad kuwaas oo sawiradooda ay qabsadeen baraha bulshada. Dad badan ayaa baraha bulshada aad ugu wareejinayay sawirada xayawaanka Haramcadka iyo ciidanka dowladda ee lagu magac daray. Ciidankan ayaa ka qayb qaatay howlgal dowladda ay ka fulisay xaruntii ururka Ahlusunna ee magaalada Dhuusamareeb ee Inji kadib dagaal ka dhacay magaaladaas. ciidanka Haramcad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidankii la geeyay magaalada Baydhabo xilligii doorashadii Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale loo daabulay qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Maxay yihiin ciidamada Haramcad? ciidamada Haramcad oo ka tirsan booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagidda rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka. ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababartay dowladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaaday halka qaarna ay tababarku u qabteen xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho. inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud waxaana ay u carbiyeysan yihiin shiishka iyo howlgallada qorsheysan. tuutaha ay wataan askarta Haramcad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska waxaana intooda badan ay horey uga tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda ee NISA sida uu sheegay Cabdisalaam Guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. ciidamadan waxay intooda badan ka mid ahaayeen askartii NISA ee hubka sitay balse dowladda hadda jirta ayaa u bedeshay boolis sida gaarka ah u tababaran. waxa ay u badan tahay in magacooda Haramcad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. Cabdisalaam ayaa sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidanka Haramcad ay niyad jab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiya tababarka iyo tayeynta ciidanka. ciidamadan oo waayihii dambe soo shacbaxay ayay dad badan dowladdu ku dhaliileen inay u adeegsatay dano siyaasadeed. xuduudda ciidamadana loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya iyadaa loo tababaray ciidamada isla markaana xaq u leh halka ay geynayso iyo qaabka ay u howlgelinayso balse waxaa su'aal la gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dano siyaasadeed oo lagu weecinayo dagaalka Al-Shabaab. taasi waxay keeni kartaa in laga guul gaari waayo dadaaladii loogu jiray cunaqabataynta hubka laga qaado Soomaaliya ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo dhaliilay howlgallada ay fuliyeen ciidamada Haramcad ayaa dhowaan magaalada Boosaaso ka sheegay in ciidanka Haramcad si qaldan loo adeegsado. haddii Haramcad loogu talagalay in dawaacada reeraha ariga ka cunta ee Al-Shabaab loo adeegsanayo tala ayay ahaan lahayd laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkiiba cunayo runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xunna ka dhalinaysa Soomaaliya dhexdeeda ayuu yiri madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo dhowaan ka hadlay ciidamada Haramcad. ciidamada la yiraahdo Haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawaacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda u abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo. arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan. Haramcad ayaa u badan rag dhalinyaro ah waxaana taliye u ah nin daayar oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Qaroole oo ah dhalinyaro. si kastaba ha ahaatee dadka qaar ee Soomaalida badankeeda ayaa ku doodaya in ciidamada Haramcad ay yihiin ciidamo u soo baxay dalka difaacayana sheegayna inay meeshii ka saareen awoodaha wada siman ee dowladda lagu garbinayo. ciidankan ayaa wacdara ka dhigay dagaalkii ay ku qaadeen Ahlusunna iyo weliba kii kasii horreeyay ee Baydhabo ka dhacay halka isbuucan gudihiisana uu dagaal culus dhex maray ciidamada Jubbaland ee darwiishta iyo ayaga. dadka qaar ayaa leh ciidamada Haramcad waa ciidan qaas ah u soo baxay dowladda Soomaaliya ahna ciidankii midayn lahaa dalka. inkastoo inta badan mucaaradku iyo dadka dowladda dhaliila ay sheegayaan in ciidamadani laga weeciyay hadafkii loo aasaasay lagana dhigay ciidan u shaqeeya dowladda loona dirsado meeshii la rabay iyo ciddii la rabo in lagu burburiyo. adigu maxay kula tahay ciidanka Haramcad? sideese u aragtaa ciidankan aasaaskiisii iyo dagaaladii uu galay? ma ku taageersan tahay falalkii iyo dagaaladii uu sameeyay ciidanka Haramcad? qaybtan hoose ee commentiga noogu reeb wixii fikrad iyo faalla aad ka haysid ciidanka Haramcad.